waxaan maanta maalin axada oo 26 bisha May aan safar shaqo ugu baxaya dalka China aniga iyo wafdi wasiirro ka kooban oo ila socda. safarkaas waa safar shaqo oo ku saabsan sidii gobol ka mid ah gobollada China oo wax wada qabsi noo dhexmari lahaa dhinaca horumarinta ganacsiga iyo kala faa'iideysiga khibradaha dhinaca dhismaha iyo warshadaha iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee naga dhaxeeya. waxaan rajaynaynaa muddadaas aan joogno inaan aragtiyo fiican kala soo noqon doono iyagana aan u sharxi doono fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Puntland ay leedahay. waxaan aad ugu faraxsanahay dalalka adduunka ee danaynaya Soomaaliya inay maalgeliyaan si dhaqaalahooda u kabco in ay yimaadaan iyagoo wadooyinka sharciga ah iyo nidaamka dawliga ah u soo maraya. dawladda Puntland waxay ballan qaadaysaa in ay intii karaankeeda ah dadka jecel inay maalgashtaan si ay ummadda reer Puntland ugu faa'iideeyaan iyaguna ugu faa'iideystaan inaan wax cad oo iyaguna isku haleyn karaan annaguna aan ku naaloon karno isku haleyn karno ay ka soo baxaan. waxaa sidoo kale jecelnahay inaan ugu yeerno iyaga iyo bandamadii hore aan u tagnaba shirka maalgashiga ee Puntland ka dhacayo oo aan rabno khayraadka dihin ee dalkan leeyahay ee fudud khaasatan dhinaca kalluumaysiga iyo beeyada iyo waxyaabaha la xiriira wax soo saarka in aan noqoto meelaha u muhiimsan ee la maalgelinayo. sidoo kale badeeco badan oo aad u sahlan oo samaynteedu halka ku sahlan tahay oo ganacsatada reer Puntland dib badan ka qaabsada inay dibadda ka keenaan baa jira. waxyaabaha yaryarka aana sidii gudaha loogu farsamayn lahaa ayaan ujeedadeenu tahay oo aqoonta iyo maaragtay teknolojiyada loo soo transfer gareyn lahaa ama halka loo keeni lahaa. madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan inta halka joogta iyo wafdiga raacay wasiirada kale oo nasii dhaweynaya waa uga mahad celinaya kulankan aan halka isugu nimid. runtii waa kulan aad u wanaagsan iyo intii soo qaban qaabisay oo ugu horeysay safaaradda China iyo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya intaba. waxaan rajaynayaa kulankan inuu noqdo kulan miro dhal ah. aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.